ciidamada maamulka Muuse Biixi dhibaatooyinkii xasuuqa ay ku sameeyeen dad banaanbax ka dhigay magaalada Laascaanood ayaa maanta waxaa ka hadlay xildhibaanad Canab Xasan Cilmi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kuwooda laga soo doorto gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn waxayna sheegtay in ay wax laga xumaado ay tahay in dadka shacabka loola dhaqmo sida dareenkayga oo xamil waayay waxa ka dhacaya gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn khaasatan gobolka Laascaanood xasuuqa ba'an ee ka socda gobolka Sool ee habeen iyo maalinba ka dhacaya ee dadka lagu leynayo maanta oo ay tahay maalintii ciida ugu dambeysay ee dalfitriga ee dadku ay ciidayeen ee dadku ay adeeganayeen in xabad iyo rasaas lagu asqeeyo oo hooyo ilmaheedu u wadata inay ka soo adeegato suuqa xabad lala dhaco oo caruurtii yaryarayd ee ay kaga timi guriga ama beedkeedii la geeyay ama dhaawaceedii la geeyay wax loo dul qaadan karayo wax la aqbali kara maaha taas aad iyo aad anigoo ah xildhibaan ka soo jeeda gobolka Sool waxaan ugu baaqayaa halkan kala hadlayaa ciidamada ku jira magaalada gudaheeda iyo militariga magaalada gudaheeda ku jira ee dad siyaasadaha gaarka laga leeyay cid la khasbi karaa ma jirto beel loo khasbi karaana ma jirto beel caburin kartaana ma jirto 30 sano ayay Soomaaliya waxaan ku soo jirtay meel waa ku gaari weyday dawlad baa la dhistay 4.5 baa lagu dhistay dawladda baarlamaanka ku fadhiya golaha xukuumadda ku fadhiya dawladda ku fadhida kuraasta dalka u sarreysa ku fadhida ma aqbali karno in dadka iyaga la yiraahdo khasbi u raaca oo daqaar dana gaar ah ama dana siyaasadeed leh ay mar hore u gacan haadiyeen shacabka kadibna ay meel bugdiya oo lagu xasuuqo lagu gumaado ay agta u saareen waxaan leeyahay arintaasi wax loo dul qaadan kara ma aha xildhibaanad Canab Xasan Cilmi ayaa taageertay ciidamada xureynta ee Puntland ay ka wadaan deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn waxayna baaqi u jeeday urur goboleedka IGAD kuwa oo ay sheegtay inay waan ay ka wadaan deegaanadaasi maanta in la cusboonaysiiyo 30 sano kadib beel loo xukumaya iyo beel qasab ku qabsanaysa iyo dad calooshood u shaqaystayaala yaa ka muquuni dadkan muquuninayo xabad ku keenaya wax suurtagal ma aha saxna ma aha mana aqbalino dhaawaca iyo dhimashada iyo xabadaha iyo waxa ka dhacaya Sool dareenkayaga iyo dareenka bini'aadnimada meeshu ma Falastiin bay noqdeen waxay noqdeen dadku inay isu loo laayo sida Yahuud iyo Falastiin miya dalkii Soomaaliya gudaheeda ka dhacay oo ka bilowday waxaan leenahay arintaasi ma jirto waxaan rabnaa shacabka u dhashay gobolada Sool iyo Sanaag dadku waa federal waa beel waa 4.5 siiya maamulkiina gacan siiya maamulkiina raaca soo dhaweeya maamulkiina wax kasta maalinta Soomaaliya xorriyadda ay qaadanaysay 1960 qaar baa laha xorriyad ma rabno markii afka Soomaaliga la qorayay qaar baa laha afka Soomaaliya lama qori karo marka meel walba waa laga helaa laakiin waxaan aad uga xumahay inay caruurta Hargeysa joogta iyo hooyooyinka Hargeysa jooga iyo kuwa Burco jooga iyo kuwa Berbera jooga inay nabad ku ciidaan Sool ay dhiig iyo xabad ku ciido wax loo dul qaadan kara ma xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay baaqi u jeedisay dawladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland inay si degdeg ah ay u caawiyaan dadka ciidamada Soomaaliland ay ku dhibaateeyeen deegaanadaasi isla markaana ka barakacay dadkaas oo ay sheegtay inay u badan yihiin caruur iyo haween beesha caalamka iyo dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa inay arintaas si degdeg ah indhahooda ay ku eegaan inay ka hadlaan waxa maamulka Muuse Biixi uu ku hayo gobolka Sool waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo ma waxa la sugi waayay dadka maanta intay ciidayaan ayuu xabada lala sugi waayay ma ciidina ma la qalbi jabinaya ma la niyad jabinaya ma la baabinaya shacabka Soomaaliyeed miyaa in iyaga dawladda federaalka macalanka buluuga 24 saac sitaan Soomaaliya ma kala go'ayso ninkii ku hameeya ee ku soo jeeda ee doonaya Soomaaliya waa kala go'aynay Soomaaliya shalayna adaa midnimada keenay maanta anaga diidnay la kala go'o waa la hadlaya gobolada waqooyi annaga total uma dul qaadan karno hadaan xildhibaanada Soomaaliya waxaan ka keenaa petition ma ka keenayna baarlamaanka gobolada waqooyi in la yiraahdo xaqooda iyo go'ay mayso gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa waddanba dalka Soomaaliya ku socon mayso mana aqbalina wixii la soo dartana ma shacabkaasaan wakiil ka nahay dhiigoodii la daadiyay hantidoodii la boobayo la gubayo isbitaaladii la geli waayeen loo furay dhiig baxu baaba'aya dawo aan lahayn waxaan ka codsanayaa beesha caalamka iyo dawladda federaalka masiibooyinku waa labo waa mid dabiici ah oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo bini'aadanku gacmihiisa ku keensado sidii loogu gurmaday kuwii masiibooyinku ku dhaceen waa dadkayga waa shacabkayga waan ku faraxsanay dawladda waan ugu hambalyeynaya waa in shacabkan Sool degdeg loo gaarsiiyaa dawo iyo baraka hal waxa ka barakacay gobolka Sool oo hadda barakac ku bilowday tukaraaq kun iyo 150 kun oo qoys baa ka barakacay oo miyiga magaalada leh oo maanta meel cid la wadan oo aan cid u danqataa jirin oo aan cid aadaysa jirin oo cid ka dhidhiyaysa jirin waxaan leeyahay maamul goboleedka Puntland waxa waa maamulka gobolka leedin ka qabsaday muddo dheer ka hor shacabkan siyaasiyiintii beenta u sheegtay soo hungoobe waa ku soo hungoobeen
kuwa ka shaqaysanaya maamul goboleedka kale la mid yihiin kuwa halka jooga shacabka Soomaaliyeed maamul goboleedka Puntland iyo dawladda Puntland waa inay gacan siisaa oo ay ka dhiciyaan waraabayo horarka cunaya beesha caalamka waxaan ka codsanayaa iyo dawladda federaalkuba inay gaarsiiyaan waxa ay xaq u leeyihiin shacabka Soomaaliyeed lagu xasuuqaya gobolka Sool waxaan leeyahay waan halkan uga baaqayaa garaadada cuqaalada odayaasha inta dhiig leh ee wax kala garanaysa war qabiil ma dulaysto qoomaan isduleyn ilaahay ma duleeyo beelina beel khasab kuma xukumi karto dalka Soomaaliyeed khasab laguma kala goyn karo midnimada Soomaaliyeed waa muqaddis baarlamaanka ku wada fadhiyaan golaha wasiirada ay ku fadhiyaan hay'adaha waaweyn baa lagu fadhiyaa suuqyada dhan bay ku jirtaa Puntland maamulka Somaliland federaalku kamid yahay Ciise Cabdi Ciise Puntland TV Muqdisho